guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa waxay hadda ku dhawaaqeen natiijadii ka soo baxday doorashadii 13kii bishan aynu ku jirno ka dhacday deegaanada kala duwan ee Soomaaliland isla markaasina ay ku tartamayeen saddexda xisbi qaran ee Ucud Kulmiye iyo Wadani waxaana gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame uu shaaciyay in xisbiga Kulmiye uu ku guuleystay talada dalka ee uu musharaxa madaxweyne ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici isla markaasina Muuse Biixi Cabdi uu noqonayo madaxweynaha 5 sano ee soo socda ee Soomaaliland komishanka doorashooyinku isagoo ogsoon in doorashadan qaranka Soomaaliland u soo jiiday sumcad badan iyadoo wakiilada caalamka ee goobjoogayaasha ahaa tiradoodu gaadhaysay waqtigii ugu badnaayeen oo ay gaadhaysay 60 qireena inay ku dhacday hanaan xora xalaal ah waafaqsan nidaamka caalamiga ah ee doorashooyinka loo maamulo loona qabto isagoo ka duulaya qodobada 83aad ee dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee waajibinaya habka loo dooranayo madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha Jamhuuriyadda oo ah qaab doorasho oo toos ah isla markaana qarsoodi ah iyadoo isku lamaanan komishanku isagoo tixgelinaya qodobka 64aad xeerkiisa doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer number 20/2001 ee wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameeyay 2017 kadib markuu tiriyay iskuna geeyay xisaab ahaan codadka ansaxay kuwa xumaaday ama wax kama jiraanka aanu ka dhignay ee ka noqday ee ka yimi xafiisyada doorashooyinka ee goobaha doorasho degmo iyo gobolba ee Jamhuuriyadda isla markaana xisaab ahaan iyo sharci ahaan ku qancay natiijada ka soo baxday kadib markuu arkay hubiyay kuna qancay in doorashada madaxtooyadu si hufan oo habsami ah sharcigana waafaqsan u dhacday komishanka doorashooyinka isagoo raacaya qodobka 83aad firqadiisa afraad ee dastuurka qaranka Soomaaliland kaasoo dhigaya sidan waxaa loo aqoonsanayaa in doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynuhu ku guuleysteen labada mudane ee magacyadoodu ku sheegan yihiin liistada hesha codadka ugu badan komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa isagoo cuskanaya qodobka 64aad firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13kii Noofambar 2017 ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga Kulmiye oo kala ah mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sanadood soo socota 2 mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay jagada ku xigeenka madaxweyne 5 sanadood soo socota iyagoo musharaxiintu kala heleen xisbiga Ucud 23,141 aan ku celiyo xisbiga Ucud 23,141 cod percentage ahaan markaynu eegno wuxuu helay 4.17% boqolkiiba
xisbiga kulmiye wuxuu helay 305,909 cod. aan ku celiyo xisbiga kulmiye wuxuu helay 305,909 cod oo boqolnay u noqonaysaa 55.19 boqolkiiba. xisbiga wadani wuxuu helay 226,029. aan ku celiyo 226